isbitaal SOS ayaa ka mid ah isbitaalada ugu weyn ee koonfurta Soomaaliya. Adeegyadiisa waxaa ka mid ah daryeelka hooyada iyo dhallaanka. SOS ayaa la aasaasay sanadkii 1982 laga soo bilaabay xilligaas oo isugu jiray xilliyo xaalad dagaal wadanku soo maray iyo waqtiyo nabdoonaaba. Waxa uu isbitaalku ahaa mid shaqeeya. Sanadkii la soo dhaafay 2017 isbitaal SOS waxa ku dhashay caruur gaaraysa 9932 caruura kuwaas oo helay adeegyada caafimaad ee isbitaalku uu bixiyo. SOS waa xaafad ku taal degmada Hiliwaa oo lagu magac daray isbitaalka oo ah meelaha ugu caansan ee ku yaal Hiliwaa. Haddaba adeegyo noocee ayuu bixiyaa isbitaal SOS? isbitaalku waa free sidaad ula socotaa yacni halkii yoon sidaan kuu sheegay waxa imaanaa dad 400 ku dhow waxayna ku helaan adeeg free ah ayay maaragtay ku haystaan iyo daawo free ah waliba iyo cunto khaasatan bukaan jiifka waxa la siiyaa raashin ayaa habeenkii la siiyaa waa la quudiyaa iyo maalintii waxa ugu badan dhanka dumarka waxa ugu badan hooyo dhiig baxayso ama hooyo eclampsia qabto ama anemia ah ama mid oo maxaan ku dhahay isheeg infection ah ama kuwa foosha ku raagi inta ayaa u badan dhankaas dhinaca caruurta waxa u badan xanuunada respiratory tract infections ka la yiraahdo oo ku dhaca maaragtay respiratory systems ka ku dhaca waxa kaloo ku badan measles ka ayaa ku badan oo dhan oo ilmaha measles ka ama jadeecada la xanuunsan la jiifiyo ayaan leenahay waxa kala saan hore u sheegay ilmaha gubniinka iyagana soo gubta ayaa maaragtay lagu daaweeyaa. Isbitaalka SOS waxa uu ka mid yahay isbitaalada ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya. Waxaa ku sugan in ka badan caruur gaaraysa 120 caruur ah. Waa halka lagu daryeelo caruurta danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu ku yaalaa degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir. Waxa uu dhisan yahay hab casri ah sida indhihiina ku aragtaan. Halkan waxa ku ciyaara caruurta marka ay helaan jaanis ama fasaxa xilliyada ay ka soo baxaan iskoolaadka. SOS waa meel ay ku nool yihiin caruur danyara kuwaas oo la siiyay hooy ay ku noolaadaan iyo waxbarasho lacag la'aan ah. Agabyada caruurta ay ku ciyaaraan ayaa ah kuwa ay caruurtu ka helayaan qaybta xanaanada caruurta danyarta ah. Markaad aragto qolalka jiifkooda, qaybta nasiinada iyo raashinka loogu talagalay, waxaad arkaysaa nolosha ka jirta xaafadda isbitaal SOS ee degmada Hiliwaa. Haddaba caruurta ku nool SOS maxaa lagu soo xushaa marka laga soo mid dhigayo caruurta lagu xanaaneynayo? inta ku bixinayna maya kullihi adabis inta waxa la keenay cunug dhibaataysan oo waalidka awoodin bay wax loo qaban karo maana cunug inta wax loogu bixinayo hay'ad uma xariisan uma diiwaan gashan soo ma garan waxa inta soo galay waa cunug waaye macnaha xuquuqdiisa waaye sidii waxbarashadii hooygiisii macnaha daryeelkii caafimaadkii waaye hay'ad marka waxa ka qabataa dhinaca macnaha cunuga daryeelkiisii dhinaca waxbarashadiisii dhinaca macnaha daawadiisii dhinaca waxa ka siisaa oo kale in wax kasto xuquuqdu u baahan cunugi inuu meesha ku helo oo rightskiisa ahay ay noqonay ma cunug macnaha waalid lacag haysto ma soo galo meesha mana imaado laakiin waa cunug macnaha waaye xuquuqdiisa rightskiisa waaye soo galo oo waalidkiisa awood u waaye soo galo. Newborn unit waa qayb caruurta miisaankooda halka kiilo ka yar yahay lagu baxnaaniyo kuwaas oo isugu jira caruur banaanka isbitaalka ku dhasha ee la keeno SOS iyo kuwa ku dhasha isla SOS kuwaas oo ka soo hormaray xilliyadii loogu talagalay dhalashadooda. Ma jirtaa qaab hooyadu ay ku aqoonsan karto cunugeeda ku jira newborn unit? waxaa la sameeyaa calaamad gaar ah oo hooyada lambar la siiyo cunugana lambarkaas inta loogu xiro marka identification number la lahaa kaasa lagu kala yaqaanaa markay oxygenkooda hooseeyo soo daryeelka ay u baahan yihiin ayagana meesha ka helaan. waxaa kaloo loo qabtaa ilmaha iyo hooyooyinka markii la isku daro in la siiyo tala bixin isugu jirto xagga nuugmada talaalka daryeelka iyo dhammaan ilmaha waxay u baahan yihiin oo dhan. waxaa ka shaqeeya qaybta shaqaale mataqaanaa tababaran oo shaqadaas si gaar ah loogu tababaray ilmahana inta hooyooyinka qaybtan qolalkan ugu dhaganay jiifaan soo inta hooyooyinka ay ka maqan yihiin xataa wixii daryeel oo ilmaha ay u baahan yihiin ayaga u sameynaa. SOS waxaa ka jira mashquulka shaqo ee maalinlaha ah waxaana u soo doonta gargaarka caafimaad dadka degan geyga Soomaaliya ee awooda inay soo gaaraan. Maxamed Ciise Koonaa, Goobjoog, Muqdisho.